Clarence Seedorf oo u dhashay waddanka Netherlands ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu galay diinta Islaamka. Qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Instagram ayaa waxa uu ku amaanay 32,000 oo qof oo la dabaaldegay. Seedorf waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku biiro ragga iyo haweenka ay ku walaaloobeen adduunka, waxaana si gaar ah ugu mahad celiyay xaaskiisa oo la yiraahdo Sofia oo uu sheegay inay si qoto dheer u fahansiisay macnaha diinta Islaamka. xaaskiisa Sofia Makramat oo haweenay ganacsato ka soo jeeda Iran haysatana jinsiyadda dalka Canada ayaa muddo 2 sano waxay ku nooshahay magaalada Dubai ee waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta, halkaasoo isna uu ku shaaciyay inuu ku islaamay. Seedorf oo ah laacib sumcad weyn ku yeeshay dalkiisa iyo caalamkaba, waxa uu ka soo shaqeeyay xarumo lagu tababaro ciyaartooyga dhawaan oo ku kala yaala Mareykanka, Suriname iyo Netherlands, isagoo sidoo kale la taliyo u noqday kooxo kubadda cagta. waxa uu koobka horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League kula guuleystay markii ugu horeysay kooxda Ajax ee dalkiisa sanadkii 1995, halka kooxda Real Madrid uu kula guuleystay 2 jeer oo kala ahaa sanadii 1998 iyo 2003. kooxda AC Milan ayaa waxa uu kula guuleystay sanadkii 2007. Real Madrid waxa kale oo uu kula guuleystay koobka La Liga ee horyaalka Spain sanadkii 1997, halka AC Milan uu kula guuleystay 2 jeer koobka horyaalka Talyaaniga ee Serie A ama Liga Calcio sanadihii 2004 iyo 2011. inkastoo uu islaamay, haddana waxa uu sheegay inaanu bedeli doonin magaciisii hore. 20 sano u dambeeyay waxa jira ciyaartooy caan ka adduunka oo galay diinta Islaamka, waxaana kamid ah Franck Ribéry, laacibkii xulka qaranka ee Faransiiska 12 sano u ciyaarayay kooxda Jarmalka ee Bayern Munich. waxa isna diinta Islaamka uu galay sanadkii 2002, waxaana sabab u ahayd xaaskiisa oo la yiraahdo Wahiba oo u dhalatay dalka Algeria. magaciisana waxa uu u bedelay Bilal, laakiin funaanada uu ku dheeli jiray marna laguma qorin magaciisii cusba. George Weah oo ah ciyaartooygii ugu horeeyay Afrikaan ee noqdo xidiga adduunka sanadkii 1995, oo markii hore ahaa nin Masiixi ayaa galay diinta Islaamka, laakiin 10 sano kadib ayuu ku laabtay Masiixi. ciyaartooygani u dhashay dalka Liberia una ciyaaray kooxaha AC Milan, PSG, Monaco iyo Chelsea, ayaa muslimiinta iyo masiixiyiinta waxa uu ku wacdiyaa inay nabad ku wada noolaadaan. Eric Abidal oo difaaca uga soo ciyaaray kooxaha Barcelona iyo Lyon, kana tirsanaa xulka qaranka Faransiiska 2004 ilaa 2013, 18 koobna kula guuleystay 2 kooxood ee ka kala dhisan Faransiiska iyo Spain, oo ay ka mid yihiin 2 koob oo horyaalka qaaradda Yuruba oo uu la qaaday kooxda Blaugrana ee Barcelona. ayaa waxa uu ku biiray diinta Islaamka kadib markii uu guursaday Hayat Kabir oo u dhalatay Algeria. waxa kaloo la sheegay in fahanka diinta Islaamka uu ka caawiyay Franck Ribéry oo ay ka wada tirsanaayeen xulka qaranka Faransiiska. Nicolas Anelka oo isna ahaa Faransiis, sanadkii 1998 ku biiray kooxda Arsenal ee waddanka Ingiriiska, kuna ciyaaray garoonkii hore kooxda Highbury. sanadkii xigay ee 1999 ka mid noqday kooxda Real Madrid, markii dambana u saftay kooxaha Bolton, Manchester City, PSG, Fenerbahce, Liverpool iyo Chelsea. ayaa isna ka mid ahaa ciyaartooyga muslimay, laakiin hadallo uu yidhi ayaa abuuray doodo badan kadib markii uu sheegay in diinta Islaamka uu horeba u haystay oo uu galay isagoo 16 jir ah, isla markaasina uu soomi jiray si alla ula xidhiidho. dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-Dahab ee moobilkiisa gacanta. waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida taxalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.